بسم الله السلام عليكم kusoo dhawaada saaxiibayaal falanqaynta laba lacageeyo oo aad fursad u weyn ay ku jirto isbuucan oo bisha September ay maanta tahay labo maalin Arbacada sanadka 2020 waxaan isleeyahay laba lacageeyo oo fursad aad u qurux badan laba lacageeyo ku jirto lacagta koowaad ee isleeyahay waxa weeyaan NZD-JPY oo lacagtaas iyo dhankay aadi doonto ayay isleeyihiin taxliilkeeda markaas si ay marka hore soo eegno waa inaynu ka soo bilownaa meel sare Wendy Wendy ka soo bilowno lacagta saarano halkaas aynu line-ka saarano waxaynu arkaynaa lacagtani marka koobaad inay horta samaysay waxa la yaqaano triple touch ay xag kor ka samaysay halka waxaad ku aragtaa halka touch mar walba oo ay touch-ka sameeyay waxaad muuqataa in lacagta soo dhacayso marka waxay jeedaan inaad soo dhacday sare aad dhexdan halka gaadhay ay soo dhacday ilaa ay halka teedna ay si xoogan ah ku tagtay iminkana la filayo si xoogan ilaa halka lacag ku timaado meelaha waa line-ka la soo dhismaato sida la jeediyay bal aynu isku eegno sababta dhowr sababood lacagta ku aadaysaa haddaynu marka sii wadno oo aynu inta ilaa iyo 1 hour waxaynu arkaynaa lacagtan in ay ku soo socotay ascending channel aad u dheer oo marba laga celinayay gidaar halka markay ku soo dhacdo haddana laga celinayay ku soo dhacday haddana laga celiyay ku soo dhacday iminkana la filayo inay saas u aado sababtuna waxa weeyaan lacagtan sel waxay u soo aadaysaa dhowr qodob triple touch-ka sare oo ay soo dhamaysatay triple bottom-ka ama triple top-ka sare oo ay soo dhamaysatay touch-kaas ah halkaas ay ujeedaan marka la joogo Wendy oo ay soo eegnay 4 hours oo ka muuqanaya marka labaad waa lacagtan oo ay u dambayso oo ah JPY mar walba oo ay u dambayso lacagahan JPY jihada ay aado ayay khasbaysaa in lacagaha kale dhanka kale aadaan oo islaafaan lacagta JPY mataafka marka inta fiirino waxaad arkaysaa JPY inay bay aadayso sababta bay aadaysaa waxa weeyaan suuqa halkan dhowr jeer waa laga celceliyay deedna waxaa ujeedaa in halkaas sar u aado iminka oo halkan laga celceliyay dhowr jeer ودول بطم halka ka samaysay aad qurux badan kaas iyo kan waxa la keenay lacagtan si xoogan u aado ilaa halkaas sababta uu tagaysana waxa weeyaan JPY mataaf markuu joogo saas oo dhigata inaanka halka tagto meelahaas ay filayaan dhaqaaq lamida ka salafteed darteed cagsiga lacagtan waxa ah NZD-JPY ama lacagaha JPY u dambayso oo dhan waxa laga filayaa inay aadan badankoodu fursad sare ay kala saarayaan waxaad arkaysaa markaa lacagtan inaynu halkaa ka sugayno inay tagto oo aado sel qurux badan waxaa suuragal ah lacagtan inay samayso inay halkaa dib ugu laabato cabaar si yara fafato halka tagto ay macnaha soo dhamaysto touch halkaa ka soo dhamaysato touchka bacdina ay soo daawato ilaa iyo halkaa si weyn ayaynu isbuucan isha u haynaa dhammaan lacagaha ay u dambayso JPY oo dhammaantood laga filayay inay aadaan الحوجن marka waxaan siinaynaa shabakeenna meelahaas tusaalaha meelahaas ka jiray suuqa waxa ku jirta ilaa iyo 210 bid halkaas ay geynayna si diiwaanka qofka ka dhigan qofka labaadna wuxuu sii waan doonaa intuu doono tanna lacagtan waxay ka dhigan doonaa dibkeena stop loss-keena waxa ka dhiganaa wax dhowr iyo ka badan waxaan sugaynaa marka lacagta halkan ay samaysato كان الله يهلك سويستو مركز السوق عن الفورمات لا ننساش هالقص حفظ خيرك هسه بشوف صوت وصنع العكس العكس قصي حكته وحويا ويورو USD العكس يورو USD أيضا وحي كفر يعني سمسو دقائق خلق وحوجن وأحسن قرحة سليم وجهني صابت أنا محين ساوني لي صابت وحي ساوني لما كان عندنا 4 hour إن أرخينا العكس تاني inay samaysantay marka hore double top xag sare halkan wuxuu xisaabsan yahay marka saddexaad waxaan arkaynaa in lacagtan ay structure qurux badan ay dhamaysatay oo ah in trailing-kaas touch-ka saddexaad marka ay soo taabatay deedna ay soo daadatay hadda lafteeda oo qurux badan soo daadatay marka labaad ama saddexaad waxaan arkaynaa lacagta aadkiis ugu xiran yihiin ee DXY iyo dollarka oo iyaduna aadaysa buy maadaama oo lacagtan ay bay aadayso DXY waxa khasaba lacagta kale cagsigeeda inay soo aado euro USD marka cagsiga soo aadaysa oo sell out sadarteed DXY bay aadaysa
marka waxayna xaqiijinaysaa in lacagta sel ay soo aadi doonto iyadoo laftigeedu euro USD marka la joogo waa in halka si wacan uga arkayno marka aynu tagno 1 hour ka si qurux badan isagana lagu sawiran waxaa arkaysaa lacagtani ilaa haddaba inay soo daadatay in badan oo ku dhow 70 bid ugu yaraan dhow iyo 80 bid bay soo daadatay marka taxliilkeeda marka hore loo saaray waa ahay bartaasi ka soo daadanaysaa baan yidhi waa bartii bay ka soo noqotay isla halkiiba ku beegan tahay si qurux badan bay noo soo daadatay haddaba fiirsatay bas bartii aan dhigtay bar lamida ka soo daadatay oo kamilkaas wiigiis u gaaray wayna sii soconaysaa lacagtani waxaa suuragala marka inay gaadho lacagtani qofkii halkaa kasoo geli lahaa waxaa suuragala lacagtani inay la socoto ilaa iyo structure-kaa kale oo halkaa kasoo gaarayso wixii ka dambeeyana markaa aynu suuqa aynu sida wax isu bedelaan haddood stop-losskaaga wax yar ka dhigatid 36 ilaa 40 ka dhigatid halkana ay ku tahay 220 mid waa wax aad u qurux badan si qurux badan lacagta soo daadanaysaa isha ha lagu hayo waxaa kaloo in arkaynaa haddaynu halkan saarano tirada yaro kale in ascendant channel oo qurux badan ku jiro oo ay lacagta soo jabsatay aad u qurux badan ascendant channel sare haddii halkaas aragtid tiralankaaga waxaa arkaysaa lacagta inay soo jabsatay halkaas si qurux badan soo jabsatay oo xaggana triple fiican ay ka samaystay haddii halkaa tiralankeeda saaro marka lacagtani waa sir si walba waa u tahay ka war hayaysaa